السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا كحران ضيرا نيوز ألابا waxaad inooga barateen inaan idiin soo gudbino barnaamijyo wacyigelina iyo sidoo kaleba arrimaha qoyska iyo gogosha caawa waxaan idiin wadaa 4 waxyaabood oo fudud oo aad samayn karto marka xaaskaaga ay careysan tahay waxaan wada ognahay inay dumarku iska caroodaan ama siyaabo kala duwan ay u caroodaan si aad mas'uuliyadda aad soo qaaday aad u hirgeliso waa inaad isticmaashaa 4 waxyaabood ee aan ku soo gudbin doono waxaa jiraan waxyaabo fudud oo samayn karto si aad u dejiso xaaskaaga oo careysan. Number 1 raaligelin waa tallaabada koowaad ee aad ku dejin karto xag calisadaada marka ay careysan tahay. Waan ka xumahay wax ma wada xallin karto mana dabooli karto qaladaadkaaga balse waa waxa saxda ah ee laga rabo inaad samayso qaadashada qaladaadkaaga iyo inaad raaligelin ka bixiso waa waxa aad u muhiim ah oo laga rabo inaad samayso markay careysan tahay xaaskaaga. Number 2 isku day inaad dhibka xalliso haddii ay suurtagal tahay inaad xalliso dhibka waa inaad wax walbo ha kugu qaadatee aad samaysaa balse haddii aysan suurtagal ahayn isku day inaad qaadatid mas'uuliyadda qaladaadka dusha saaro qaladaadka oo u sheeg inaad mar kale samaynayn. Bar 3 samee waxay jeceshahay haddii ay ku cafiso tallaabada xigta waa inaad ka qosliso oo ay dhoola cadayso. Samee waxaad ogtahay inay jeceshahay isku day inaad ka farxiso adigoo ka raaligelinaya waa inaad xasuusataa qaladka aad samaysay isla markaana ka raaligelisaa. Number 4 koolkooli dabcan waxay doonaysaa in la koolkooliyo inkastoo aysan careysnayn. koolkooli inaad koolkooliso waxay dib u soo celinaysaa nabadiinii idin dhexaysay xiriirkiinana wuxuu noqonayaa mid hore u socda. haddii aad samayso qalad ka careysiiyo sidaad rabto olama hadli kartid qiilna ma heli kartid. isticmaal 4 waxyaabood ee aan kuu soo sheegay ee u fudud oo keenaya inaad guulaysatid. dumarku way caroodaan balse cidda xallin karta oo dejin karta waa ninka mas'uuliyadda qaaday ee gabadha mas'uuliyaddeeda haya. sidaasi darteed waa inaad wax badan ugu sameertaa uguna dulqaadataa. sidoo kale haddii ay qaldan tahay waqti xaadirkaas ma qaadanaysa qaladkeeda balse sida ay rabtay haddii aad u yeeshid oo qaladkeeda iyo kaagaba aad adiga u qaadatid xitaa adiga oo laga qaldan yahay taasi waxay fursad u tahay mustaqbalkiina dambe iyo weliba inaad wada noolaataan. balse haddii aysan jirin dulqaadkaas oo aadan xallin karin xitaa haddii laga qaldan yahay taasi waxay sababaysaa in ay noqoto midi ku taag oo halkaasi uu ka yimaado burbur iyo kala tag. mar walbo ninka ragga waa inuu dulqaad iyo samir u yeeshaa wax walba oo kasoo wajaha dhanka xaaskiisa. sidaasi darteed waa in la koolkooliyaa oo loo dhoola cadeeyaa oo naxariis la dareensiiyaa wax walbo ay tahay. ma oga waqti xaadirkaas ay careysan tahay balse waxa bedeli kara waa adiga uun oo sabra dulqaadna muujiya qaladkaagana qaata xitaa haddii laga qaldan yahay qaladkeeda loo baahan yahay inaad adigu qaadato. si walbo ay noqoto iyo marxalad walbo jirto waxaa wanaagsan in aad noqoto ninka samirka iyo dulqaadka u saaxiibka ah. waa easy aad bayna u fududahay inay dumarku caroodaan waxaan jirin iyo wax jiraba inay ku caroodaan iyo hadal la isku qabsaday intaba. sidaas darteed ma xamili karto oo dulqaad uma yeelanayso inaad la gartantid oo khaladkeeda aad tustid kadibna ay qaadato waa midaan dhici karin dhici dooninna.
sidaas darteed maadaama qaladkeedu uu qalad yahay balse aysan qaadanaynin waxa lagaaga baahan yahay inaad adiga dusha saarato oo samirkaas iyo dulqaadkaasba aad adigu la timaado waayo oraha Soomaaliyeed baa oranaysa oo samir ama ka samir ayadoo samir iyo dulqaad ma lahan waayo lama dhihin ha sabirto mana sabrayso oo mar walba iyada ah mid isla saxan islana gar leh sidaas darteed waxa hoggaanka lagu dhiibay mas'uulna lagaaga dhigay ehelkeedina ay gacanta kaaga soo saareen inaad tahay nin garameed leh dulqaad iyo samir xalin karana khilaaf walba reerkiisa ku yimaada ama isaga iyo marwadiisaba soo kala dhexgala sidaas darteed waa inaad qaadataa talooyinkan hadda aan kuu soo jeediyay waayo wax badan ayay ka anfici doonaan adigu laftirkaaga aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga ee aadna siiseen waad ku mahadsantihiin kumanaan jeer iyo maliyamaad jeerba wixii aad tala iyo tusaale noo haysaan waad inoo soo gudbin kartaan inaguna waan idinla wadaagi doonaa insha Allah